مدن مدحوينه عيدنا كمان مدنا هدي أدنى ديجامين يصير مدن مدحوينه وحن قريه هاس إن النوفيرسد أذان كعد سنينا كلية عافماتك وحن أجنا هاي إن دولة دولة هاي مش هيجانا إنه مدي الدنين نظام كدولة دو أي وحكو لسه يسوى وحكو قرحنا يسوى كي عن سجينه صادر كنا سيو مدن حسن وسمكوا وحي شعبكو أي مدنيين دولة هدي إيدا تقانو دولة وحال الربا أدينكونا إناد سيداس كوكان عدان codsi bulsho waa fariin iyo codsi dheer oo iswata kana yimid bulshada ku dhaqan xaafad ka mid ah xaafadaha degmada Hodan ka soo horjeedka isbitaal Digfeer gaar ahaan kuliyadda caafimaadka ee Mindishiin ee degmadaasi Hodan dhulkan waa dhul dawladeed waxaana in muddo ku noolaa dad shacab ah walow aysan hadda dhulka ku shaqayn dawladda haddana dadkii ku noolaa dhulkaasi ayaa dawladda si gaar ah madaxweynaha dalka uga codsanaya in dhulkan loo deegaameeyo isla markaana loo sharciyeeyo maadaama aan nahay ay yiraahdeen dadaan awoodin inay barakacaan dawladana ay dhulkeeda deegaameynayso waxaan nahay beedeen dadkii xaq u lahaa in loo deegaameeyo dib u dajin ballaaranna loogu sameeyo madal arrintan ay ku codsanayeen bulshada ku dhaqan xaafadaha kuliyadda Mindishiin ee degmadaasi Hodan waxay ku qabsadeen gudaha kuliyadda iyadoo halkaasi ay goobjoog ku ahaayeen odayaasha dhaqanka xaafadda culamaa u diin nabadoono ugaasyo garaadyo cuqaal haween iyo dhalinyaro waa dad ka wada midaysan dhamaantood hal fikrad kaasoo ah in marnaba aan dhulka la dhaafin dawladana aysan cid kale u gacan gelin ee ayaga loo deegaameeyo maadaama waalidiinta ku nool halkaasi badi caruurta ay haystaan ay yihiin caruur agooma ah waa siday hadalka u dhigeen haddaba qaar ka mid ah odayaashii culimadii waxgaradkii cuqaashii haweenkii iyo dhalinyaradii isku soo baxan sameeyay ayaa la hadlay warbaahinta waxay codsanayaan marka galabtay oo ay halkaan isugu soo baxeen in dawladdu dhulka kamaaranka dawladdu qorshiyaalkeedu waa badan yihiin sifaha ay uga maarmeen dawladdu iyada taqaana waxay codsanayaan oo galabta isu imaadkoodu uu ku saabsan yahay in lagu deegaameeyo ayaga oo kamaarankii dawladdu ay uga maarantay ayaga lagu deegaameeyo oo ay iyagu ogol yihiin oo diyaar la yihiin sidaas ayay galabta isugu yimaadeen shacabka magaalada Muqdisho degan intooda badani dawladda waa dad taageersan oo ogol oo muddo dhan ay waxay la daaladhacayeen dawlad la'aan iyo ammaan darro iyo jaahwareer iyo qax iyo shidu kan kuliyadda caafimaadka waxaan ognahay in dawladdu leedahay ma sheeganayno ma diidanin nidaamka dawladdu ay wax ku dhisayso wax ku qurxinayso oo ku deegaameynayso aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa waxaan codsanaynaa dadkan in la tixgeliyo gudoomiyaha degmada uu yimaado duqa magaalada uu yimaado madaxweynaha laftiisa kama xirra ra'iisul wasaaraha kama xirra cid walba inay halkaan aragto dadkan waa dad u baahan maanta in meeshan sidii ay haddii laga bedelay sidii kuliyadii caafimaadka in ummaddu ku noolaato oo lagu deegaameeyo oo mataqaanaa lagu qurxiyo dad ka mudan ma jiraan waxaan ognahay dad badan oo sidaan oo kala ah in lagu deegaameeyey oo dhulkii lagu qurxiyey oo jidad loo sameeyey oo lagu wanaajiyey annaguna waxaan codsanaynaa dadkaas maatada iyo odayaasha iyo caruurta iyo dumarka u badan ee meeshaas aan ka kici karin wax badanna ku noolaa in meeshii lagu deegaameeyo anigoo adkaynaya codsigii madaxdii iga horreysay ay jeediyeen waxaan leenahay mudanayaal maadaama aan inoo fududayn inaanu xaafisyadiina inta idinkugu nimaadno shaksi idin hor fadhiisano waxaanu danbidnay inaanu codsigeenna iyo cabashadeenna idiin soo marsiino meediyaha waan rajaynayaa marka idin soo gaarto inaadna tixgelin doontaan baahideennana aad qiimaan doontaan waxaan si aad iyo aad ay ku jirto mas-uuliyad idinkaga codsanaynaa in baahideenna iyo cabashadeenna iyo codsigeenna aad wax ka qabataan oo marka arrimaheenu idin soo gaaraan aad il naxariis lagu soo eegtaan ka codsanayna oo annaga dhammaan bulshada ku nool jaamacadda Mindishiin ka codsanayna inaad naga aqbashid mudana madaxweyne waxaan nahay dadkaagii waxaan nahay ehelkaagii waxaan nahay hooyooyin Soomaaliyeed
oo dhibaataysan ku murugooday meelihii dagaalada ku dhaceen dhibaatadu ka dhacday ahligu ku dhacay qaar ku naafoobebe qaarba ay dhibaato haysato mudane madaxweyne cidinagama mudna haddii aadna deegaameynaysid mudane madaxweyne waxaan kor iyo hoos inaad noo fiirisid adaan kaa codsanaynaa mudane madaxweyne waxaad tahay madaxweynihii dalka kii ugu horreeyey kiina aakhirka ugu dambeeyey mudane madaxweyne waxaad tahay kan aan taageersannahay kan aan aydsannahay kaan habeen iyo maalin kusoo toosno mudane madaxweyne waxaad tahay aabbihii dalka waxaad tahay aabbihii qaranka waxaad tahay kan aan har iyo habeen aan kusoo toosno qalbigeennana aan ku hayno dadkani waa dad u baahan maanta dawladdu inay gacan u fidiso inay u deegaamayso maaragtay deegaan siiso inay dib u dejin u samayso waxaan codsanaynaa oon ku celcelinaynaa in aad dadkan dib u dejin u samaysaan 30 sano iyo ka badan ayay degan yihiin maantay cid uga baahi badan ma jiraan Soomaaliya waxay yiraahdaan dari ninku dhawaa lafaha kala baxa intaas oo sano ayay deganaayeen cid uga xaqnimo badan ma jirto alxaqu liman sabaqana carabta ayaa ku mahmaada xaqa qofkii u soo hormaray ayaa iskale dawladda waxaan leenahay ilna xariis inay ku fiiriyaan aan ka codsanaynaa waa dad maaragtay runtii aad maaragtay ilmihii ku dhashay meesha ayaa ku qaangaaray oo ku dhalay Faaduma Cabduqaadir ay TV-ga dalsan Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet